الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. سورة البقرة آية وكسر السرنين درسيga maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayada 266 waxaan ku dhaxshinay qaybtii ka hadlaysay dhaqaalaha iyo sidii loo maamuli lahaa ama sidii loo kasban lahaa oo loo shaqaysan lahaa ama sidii dhinaca aakhira looga faa'iideysan lahaa. wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala marka ayawaddu axadukum ayawaddu ma jecel yahay axadukum midkiin ma jecel yahay an takuuna inay ahaato lahu isaga jannatun beer inay u ahaato beertaasoo min nakhiilin geed timireed ah iyo wa acnaabin cinabyaal geeda timir iyo cinab isku jira tajri beertaasoo ay socoto min taxtihaa hoosteeda al-anhaaru wabiyaashu ay socdaan lahu beertaasoo uu u sugnaaday beertaasoo lahu ama lahu xaaluu u sugnaaday ninkii beerta iska lahaa fiihaa beerta dhexdeeda uu ugu sugnaaday min kulli thamaraati midhaha xaggooda midhaha oo dhan xaggooda uu wax uga sugnaaday wa asaabahu uu asiibay walxaal asaabahu uu asiibay alkibaru da'weyni isagoo xaalku saas yahay baa da'weyni ku dhacday walahu waxaa u sugnaaday duriyatun caruurina ay u sugnaatay caruurtaasoo ducafaa'u taag daran oo fa asaabahaa uu asiibay beertii icsaarun baa asiibay icsaarun dabayl ayaa asiibtay dabayshaasoo fiihi dhexdiisaba naarun dab uu ku jiro dabayl dab wadata ayaa asiibtay faxtaraqat markaasay gubatay beertii kadalika sida tusaalahaa laydinku caddeeyo o kale yubayinu allahu ilaahay u caddaynaya lakum idinka al-aayaati aayadaha idinku caddaynaya lacallakum waxaad mudantihiin tatafakkaruuna inaad fikirtaan. masalkan iyo tusaalahan sida alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullahi uu soo saaray cumar ibn khataab radi allahu canhu waa saxaabada maalmaha ka mida wuxuu weydiiyey aayaddan markaasaa waxa yidhi allahu aclam uu cadhooda wuxuu yidhi ama waa garanayna dhah ama ma garanayna dhah. cabdullahi bn cabbaas oo meesha jooga baa wuxuu yidhi aniga naftayda waxbaa ku jira wuxuu yidhi ha cabsanini naftaadana ha xaqirini sheeg. wuxuu yidhi aayaddu waa matal tusaale wey tusaalahay bixinaysa waxa weeya ruux markiisii hore camal wanaagsanaa oo daacada ilaahay ku dadaali jiray kadibna shaydaan lagu salliday shaydaankii uu dhaqankiisii bedelay xumaan markaa kadib ku foofay oo ku kacay camalkiisiina bedelay kii hore oo dhan bedelay kaasaa tusaale laga bixinaya. wa ficlan waana saasoo waxay aayaddu tusaale ka bixinaysaa ruux camalkiisii hore wanaajistay kadibna samaantii xumaan ku bedelay oo dhanka macaasida iyo dunuubta u foofay camalkiisii hore marka buriyey markuu camalkiisii buriyey kadib ayuu xaalad baahi daran tabardarro fara badan baahi badan leh ayuu galay. wuxuu u baahday marka wixii hore uu shaqaystay maadaama hadda uu jilcay baahan yahayna inuu helo markaasuu waayay. kaasaa marka tusaale laga bixinaya macnaheedu waxa weeye ruuxii camalkiisa ilaalin waaya maalin uu aada ugu baahan yahay oo maalin aakhara ah oo uu isleeyahay waxbaa kuu yaalla ayuu waayi doonaa. camalku marka in la waardiiyey u baahan yahay cibaadaadku in la waardiiyey u baahan yahay oo waxyaalaha burinaya laga ilaaliyo. haddii kale maalin aad baahan tahay ayaad hungoobi doontaa waxba waayi doontaa way macnaha. waxaa lagu mitaaliyey marka sidii ruux beer lahaa oo kale. beertu waxay isu dhex taallaa cinab iyo timir. beerta geedaheeda hoostooda waxaa durduraya webiyaal waa meel macnaha barwaaqa. beerta dhexdeeda ninka iskale waxa uu ugu sugan oo beerta ugu yaalla midho nooc walba midhaa cinab ha noqdo timir ha noqdo noocyada kale ha noqdeen midho oo dhan baa ugu yaalla. markuu xaalku sidaa yahay ayaa da'nima asiibtay
سو سال حالكيس يا هذا تقولي وكل عدود أوبي عرور تبردر لنا مركا والي يعني وحويان ووجه دله مرضا بقى معناها المير يرطليو isagina waa tabar la yahay ilmihiina wali tabargal ma noqon beerna marka waa u jirtaa beertii u jirta isagina tabar dhigayo uu soo shaqeyn karin xoog ku shaqeeyo uu san haynin isagina uu duqoobay ilmo yar oo baahan oo isuma qadaana meesha ay u joogaan ayaa beertii uu xoolaba ka naxay baa waxa ku dhufatay dabayl dab wadato markaas wax alla wixii oo dhanba ka gubteen kaasoo kale mid jecel yahay midkiin baa leeyahay marka macnaheedu waxa weeyaan xilli aad duqaasoo kale noqotay baahidaaduna badan tahay aadan la shaqaysan karin waa aakhire aadan shaqaysan karin oo shaqa ayna ku furayn xilliga isaga baa camalkaagii aad dayacday adduunyada aad ilaalin weyday xilliga un baad waayid doontaa way macna sida ninka beerta lahaaba xilligu ugu baahi badnaa ay beerti ka bacday ka gubatay macna saasuu ilaahay aayaadka idinku caddaynaya subxaana wa tacaala أيود ما تجعلها أحدكم مسكين أن تكون إلي أهات له إساق جنة إلي داري أهات متعلي بيرتاس من نخيل جيت مرادة وأعناب إيو عنبيال بيرتاس تجري أي سعدان من تحتها هوست إذا وحا قلقلية وقيرا هوست الأنهار وبيال بقلقلية beertaas lahu ahadka uu usugnaaday fiiha dhaxdeeda uu usugnaaday min kulli thamarati miro oo dhan xaqiisa ay wax uga sugnaadeen beerta miro oo dhan ba ku yahay xaalku markuu sidaa yahay wa asaabahu wal xaal ayu asaabahu uu asiibay al kibaru da'waynan ama wa asaabahu waxa asiibay xaalku markuu sidaa ahaa oo beer cilad iyo timir iyo nooc walba uu lahaa midhana ugu dhex yaaleen nooc walba markaas waa asaabahu waxa asiibay alkibaru da'weyna ba asiibay walahu waxa u sugnaaday awal xaal lahu isaga ay u sugnaatay durriyatun caruri ducafaa oo taag daran carura shaqaysan karinna waa u joogaan oo yaryar oo tabar daran oo xoogooda wali iyo muruqooda maalin waa u joogaan asagina waa tabar dhigayo da'ba heshay fa asaabaha beerti waxa asiibay isku haleynay asaguna maadaama uu tabar dhigay iyadu isku haleynay ilmahan kalaata isuma qadaabana beertaasa tacab u ahayd fa asaabaha beerti waxa asiibay i'saarun ma asiibay i'saarku waa nooc dabaysha ka mid dabaysha la yiraahdo yani taluliya la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa yani irrimis baa la yidhahdaa waa dabaysha kaliisha inta badan baa la arkay waa dabaysha istaagta oo macnaha waxa weeyaan intay bus kiciso ayay kor isu taagtaayo cirka xaggiisa aada macna saas weeyaan taluliya koonfurta la yidhahdaa wal malane irrimisna waa la yidhahdaa irrimis maadaama cirka isu taagto yani cirkay ribinaysaa saasoo kale ta yidhahda saas weeyaan waxaa kaloo la yidhahdaa dabayl kaniineedna waa la yidhahda waa kaliisha xilliyada roobadu soo dhow yihiin bay inta badan kacdaa macna icsaarka marka dabaysha noocaasa la yidhahda fa asaabahaa beertii waxaa asiibtay icsaaru dabayshaasaa asiibtay fiihi icsaar dabayshaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay naarun dab u yahay faxtaraqad markaasay gubatay ninkaas muxuu samayn karaa marka isagii waa beer dambe ma sabci karo ilmuhu uma shaqayn karaa waxoogaagii uu isku halaynayay gubati maxaa u yaalla marka waa uu qatan yahay sooma camalkaaga saalixa haddaad ilaalin weydo adduunyada berrito aakharo markaad tagto oo aadan shaqaysan karaynin una baahan tahay ayuu kaa guban doonaa marka camalka ilaali wey macna saas weeyaan oo dhaqankaaga ha burinin iyo camalka wanaagsan ee ilaahay subxana wa tacala ugu dhawaanaysa kadalika sidaasoo kale ayuu yubayinu llahu alla u caddaynaya lakum idinka alaayaati ayadaha idinku caddaynaya lacallakum waxaad mudantihiin tatafakkaruuna inaad fikirtaan bal waxaa laydinkala hadlaya inaad u fiirsataan oo dhuuxdaan oo isku daydaan inaad fahantaan kadibna dhaqan gelisaan يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أيضا مركا ما دام الله ينقلصوا حلي أيضا ندى انقصوا بحلي أيدي كوري ما دام الله ينقلها لها أعماش وحيالها برية ويتمت مثلا إنه الروح عمل كيس إلهي درتي ونؤلميون ويتمت إنه اتباط الرعي وضدك يدبو ويتمت إنه ضدك وكوغل الرئيس maadaama waxyaalihii camalka burinaya laga soo hadlay ayaa aayadan hadda aynu ka soo baxnay leedahay acmaashiina ilaashada saas macna tayib yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo anfiquu bixiya min tayibaati ma shay kiisa wanaagsan bixiya kasabtum aad shaqaysateen waxaad kasbateen kiisa wanaagsan bixiya wa mima
كي قار كينا بحية أخرجنا أنصوصا من لكم إذن من الأرض للك أن إذن كصوصا وحيالها للك إذن كصوصا بحلي قار كودنا بحية ولا تيمموا هؤقصدنا الخبيث كالحن ومنه كالصوشة كمل تنفقون حالا بحليسان ولستم والحال لستم آتي أيضا أهين بآخذيه كوكا ذنا يكاح إلا أن تغمضوا إلا إن الله كان مويه فيه دحيس إلا إن اسكو قصي إن الله كوكا ذا كان مويه سكرا إذا نقادين واعلموا وحدة أن الله الغني أنه يهمتك ديرتون حميد الله مهديو مهد مضن أيضا إن ولي وحي لنا من نسيفريا صدقة دي بل نقبرني حيالي حولها فائدة دول والصدقة آخرون فائدة أقوب بدن حولها إيبت كاد كل جديد إيد شقيستي مرها إيه فائدة أقوب بدن يتلقى هلاي وإن يكون قلان صندوق آخرون ساسنا هذا البآب لوقاها اللي يوم السنة نقول أراني ذاتك إيمانك له واحد صدقة بحسان واحد كسبتين كيسا ولا يكسن وحكا بحيه من طيبات ما كسبتم قناع سيبات كشقيستين حوق iyo muruq baad ku soo saarateen wada xamaalateen kiisa dayibka wax ka bixi dayibkaasi laba macnaba waa soo galaya waa mid koobaad shaygu inuu xalaal yahay haduu xaraam yahay dayib ma aha وبالتالي hadaan xaraam wax ka sadaqaysato ajirkii wali maysid dambigeedina aduu ku saaray sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam marka dayibka horta waa inuu xalaal yahay dayibka waxa kale soo galaya shaygani inuu yahay shay wanaagsan oo adoomadu kala qaadan karaan oo intifaac leh laakiin waxa haysato ka ugu xulay ugu liita hadaad ka abaartood aado oo adiga laftaada hadii lagu siiyo xataa aadan qaadateen inda isku qabasho mooyee inda Allah mooyee aad si kale ku qaadateen hadii taasi waxa weeyaan Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaydan idinku isu quurin oo idinku aydan qaadateen haysiinina ila waa kan soo marnay sadaqada aad baxsanayso ilaahay baad kula mucaamaloonaysaa soo waa qardi iyo amaha aad ilaahay amaanayso xoolahaaga inta ugu liidato miyaad ilaahay u doori oo adugu qaadateen hadii lagu siin lahaa ama aad mucaamalo dad kula gelileen abadeyn ahaan dad aad deyn kula hayd ba ay ku siin lahaayeen maad yeesheen waxaad adigu yeesheen rabbiga subhanahu wa ta'ala hawla bareeyno xasiin saasoo macna taas rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka waxa wanaagsan xalaashana abaxsada oo xoolihiina taaka bixiyay ama waxyaabaha dhulka aan idin ka soo saarnay ha noqdo oo waxyaalaha dhulka laga soo saaray marka waxay noqonayaan waa yaani beerigi waa macdanti waa shidaalki waa rakaad gabal la oran jiray macnaha yaani duug jaahiliyadka la oran jiray kullu waxay soo galayaan wamina akhrajna lakum min al-ard ni'amka dhulka ka soo baxayo dhan ayaa soo galay macna marka wax ka bixiyo kiisa wanaagsan bixiyo ka xunna uu qasdina tayib waxa nabiga ka soo salaatu rabbi salaam alayhi hadith uu leeyahay nin saxaabada kamida ayaa saxaabada markay timirta u goodo timirta nin walba waxoogaa intuu soo qaado buu masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam keeni jiray meel baa marka laga laalaalin jiray lagu xirxiri jiray timirtii macna waxa isku xirxiran oo laabaheedu ku taal meesha marka waxa ka guran jiray lagu xiri jiray fuqarada iyo asxaabu sufa iyo dadka danleyda baahan baa meesha ka jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid wuxuu arkay timirta noocyadeeda mid kamid oo nooc siixun ah oo xashaf leeyahay iyo arkay oo meesha ka laalaatay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam midkan ninka idan sadaqayst miisan ilaahay ka cabsanaynin wax wanaagsan sadaqaysato hada waxaad rabaa wax in lagu abaalgudo soo ilaahay wax wanaagsan kala doonaysa wax wanaagsan oo qiimo gal ah ilaahay subhanahu wa ta'ala amaan oo ilaahay dadki u baxo subhanahu wa ta'ala wax wanaagsan baa siin laakiin hadaad uu shayga xun adigu aadan qaadateen nacday mariyaha dukaanka lagu tuuray yaani waxa raashinka qaarka qurmay يعني وحياة ما عصوا كليتها هذا ترى وصل قيسنا يا وحكر واحد ولا يسمع راح يسمع آخر وشيء مثل مكة يا أيها الذين كوا آمنوا بالله أنفقوا بحية من طيبات ما شيء كيس ولا يتوحكر بحية كسبتم كسبتين شقيستين واحد شقيستين كيس ولا يسمع حراشة قيمة له وحكر بحصل ومما كي حقي سنة كي قال كينا بحية أخرجنا بحية صوصارني لكم إذنك من الأرض دولك على ذلك صوصارني حسوق رجليه سكري واجب كهيد هي صدقة عالية أنت وسوق رجليه ولا تيمموا هؤقتنا الخبيث كمحل ومنه قال صوشا يكمل أما كان شقيستين أما تقولك الصباحي كيف من هؤقتنا تنفقون حالات بحنسان ولستم والحال لستم هذا أيضا أهين بآخذيه كوقع ذلك
walastum idinkoon ahayn biaakhidihi kaaxun idinkuwa qaadanaya idinkoon ahayn ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabtaanba mooye fiihi dhexdiis si uun rafaad iyo dhibo indhalaab ah macnaha waxay leeyihin nin aad dayn ku leedahay ama xaq ku leedahay ama mucaamalo beec bay dhex marayaan hadduu kuu keeno midanaad adugu hadda sadaqada ah waan sadaqaysanale iyadoo kale hadduu ku keeno maada ka qaadatay allahuma inaad u aragto xaqaagii inuu duudsiyey mooye oo indhalaad iyo markaa dhib iyo adigoo rafaad dareemaya aad qaadato mooye waxaydaan si kale idinkuba ku qaadateen habixnina ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabtaan mooye fiihi dhexdiis si kale aydan ku qaadateen sadaqaha u quudinoo ilahi subxana wa tacala ha siinina waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla haniyun inuu yahay midkii hani ah oo macnaha ka deeqtooma sadaqadiina uma baahna waa midda labaada waa qaniyo waxa aad baxsataan inuu idinka abaalgudaayey wuu heli karaa waana hayaa wuxuu idinku abaalgudi lahay xamiidu weeye midkii la mahadiyo mar walba mahadda isagaa iskale rabbi subxana wa tacala ashaytaanu yacidukum alfaqra markii laynoo sheegay sadaqada iyo baxsigeeda baa waxaa laynoo daba dhigayaa digniin laynaga siinayo ninka sadaqada inaga hortaagan cadowgeena rasmiga ashaytaanu shaydaan yacidukum wuu idin yabohi alfaqra faqiirnimuu idin yabohaya wayamurukum wuxuuna idin amrayaa bilfaxshaai xaalada foosha xunna wuu idin amraya xaalada foosha xun taana wuu idin amraya wallahu allana yacidukum wuxuu idin yabohayaa maqfiratan dembi dhaaf oo minhu xaggiisa ka ahaaday wa fadlan iyo dheeraadsiin wallahu allana waasicun mid uu fadligiisu waasac yahay wey caliimun oo cilmi badan xaalkiina la socdo ogsow shaydaanku faqiirnimuu idin yabohaya maxaa laga wadaa wuxuu idinku cabsiinayaa faqiirnimo wuxuu ku leeyahay haddaad maanta inta aada haysato wax ka bixiso soo faqri kugu dhici maayo saasuu ku dhihi war intan kaydso markaad iska bixiso soo adigii uma bahay oo berita ilmihii inay xanuunsadaan isbitaal baada lagama yaabo oo islaantii foolmoha inay ku umusha lagama yaabo maxaad isbitaal ku geen doonta oo aan radbax reerkii loogama bahan saasuu ku leeyahay baahidaadii baaba soo dhaway maxaad isaga bixin adigiyaa kaa mudan ashaytaanu yacidukum alfaqra saasuu ku leeyahy macana faqri buu idin yabohaya oo idinku cabsiinaya xagtan kaleetana wuxuu idin amrayaa faxshaa xaalada foosha xunna wuu idin amraya oo maxay tahay xaalada foosha xun waa macaasida iyo dunuubta weliba kuwooda sii fool xun kuwa waaweyn buu idin amraya foolxumada waxaa ka mid a dunuubta foosha xun idin amraya waxaa ka mid a yani bakhaylnimada iyo xoolaha haysigooda iyo inaydaan ilaahay ugu dhawaanin waa faxshaaga uu idin amraya ayay ka mid taha macna maxaa yeelay isaga shaqadiisuba waaba intaa macna allah subxaana wa tacaala isagu wuxuu idin yabohayaa haddaad isaga dartii wala xulo baxdaan maqfiratan dambi dhaaf inuu dunuubtiina idinka asturo ayib taasi waxay qaabilsan tahay meeshii kani uu lahaa faxshaaga idin amrayay allana wuxuu idinku yabohayaa inuu dunuubtiina idinka asturo tii uu lahaa haystana ilaahayna wuxuu idin yaboohayaa haddaad wax baxsataan iyagoo labanlaaban inuu idin siinayo oo fadli iyo dheeraad iyo wadata inuu alla idin siinayo subxana wa tacala marka shaydaan warkiisa ha yeeline oo ha u dhagan nuglaamine ilahay yeelatiisa subxana wa tacala dembi dhaaf raadiyo sadaqadiina ku raadiy dheeraad iyo ajir dheeraadan ilaahay ka raadiyo oo sadaqadiina ku raadiy shaydaanna warkiisa ha dhagaysanina ha u dhagan nuglaamine iska ilaaliya cadowgiina weyaan saasa laleey allana subxana wa tacala fadligiisu miduu waasic yahay wey caliim oho axwaasha addoommadiisa ka warhayo rabbi subxana wa tacala ashaytaanu shaydaan yacidukum wuu idin yabohaya wuu idinku cabsiinaya alfaqra faqiirnimuu idinku cabsiinaya wayamurukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaai xaalada foosha xunna wuu idin amraya xaalada foosha xun oo macaasida iyo dunuubta ayuu idin amraya wallahu allana yacidukum wuxuu idin yabohayaa maqfiratan dembi dhaaf oo minhu xaggiisa ka ahaa maxaa yeele sadaqada waa laysugu dembi dhaafaa saas macana sadaqada sida xadiiska nabiga ku sugan sal alay waslam sadaqadu dembi dhaaf bay kanta wa fadlanna waa idin yabohayaa alle dheeraad oo bedelkii sadaqadii aad baxsateen bedelkeedii iyadoo dheeraad wadata inuu alla idin siiyo taana ilahay waa idin yabohaya wallahu allana waasicun waa midkii waasicu yahay wey fadlu fadligiisu wey waasicun waa midkii waasico fadligiisu waasic yahay caliimun oo cilmi badan way rabbi subxana wa tacala yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wamaa yadakaru ila ulu lalbaab yu'ti wuu siinaya alla subxaana wa tacala wuu siiyaa alxikmata xikmada wuxuu siiyaa man yashaau ciduu doon waman cidii yu'ta la siiyo alxikmata xikmada ruuxii la siiyana
faqad uutiya waxaa la siiyey khayran khayr baa la siiyey kaiiran oo fara badan wamaa yadakaru ma waana qaato ma waansamo oo waanada kama faa'iidaysto ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada fayowla mooye kuwa caqliyada u saaxiibka ah kuwa unbaa waansamo oo waansamo waanada kuwa macnaa wax way ka faa'iidaysta xikmadda meeshan aayadda lagu ammaanayo ayaa culimada salafku ninba hadalka yidhi laakiin markii la soo aruuriyo waxa weeye waa diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeeda fahamkeeda iyo ku dhaqankeeda intaa way marka la soo aruuriyo maxaa yeelay alxikma qur-aanka waa la yidhahda waa kii xadiidkii nabiga cabdullahi bin mascuud warinayay laa xasada ila fitnatayni labadaa nin waxaa ka mid ahaa nin xikmad la siiyey riwaayo kale waxay leedahay qur-aan la siiyey oo ku camalfalaya dadkana ku dhaqay marka inaad ilaahay diintiisa fahamto qur-aanka iyo sunnada nabiga sal lay slam inaad fahamto kadibna ayagu ay dhaqan kuu noqdaan oo afkaaga iyo adinkaagaba ayagu ay hogaamiyaan xikmaddu wada waa cilmi naafica iyo camal saalix oo isku jiro labadaa ruuxee ilaahay uu isugu daro yani xikmadda ciduu doonuu alla siiyaayo dadka kama wada simo kulli addoommada lagama wada simee lixikmati ilbaaliga ilaahay wuxuu siiyaa dad gooni ah cidduu xikmaddaa la siiyeyna khayr weyn baa la siiyey khayr aad u fara badan baa la siiyey macnaha waxa weeyaan xoolaha waa nicmo ilahay bixiye subxana wa tacala laakiin xoolaha waxa ka weyni waxa weeye ilaahay cilmi iyo camal saalix ay isuu kaadaro xoolaha waa ka weynta xikmad ilaahay bixiyo addoommada siiyana mid yani tan ugu weyn waa middan taas way macna mana waantoomaan oo ma waana qaataan dadka caqliga fayowle mooyaane inta kale ma waana qaataan sababtuna waxa weeye allah subxaana wa tacaala sida xadiiska nabiga ku sugan sal lay waslam adduunyada wuxuu siiyaa inuu jecel yahay inuu neceb yahay laakiin iimaanka iyo khayrka iyo fahamka diinta iyo ku dhaqankeeda inuu jecel yahay cid aan ahayn ma siiyo marka isuma dhigmaan kan mid xun iyo mid fiican buu wasi kan laakiin min cid fiican oo uu jecel yahay basuu ilahay siinaya subxana wa tacala saas yu'ti wuu siinayaa alle alxikmata xikmadda wuxuu siinayaa yani fahamka diinta iyo barashada diinta iyo ku dhaqankeeda man yashaau ciduu doonuu alla siinaya subxana wa tacala inuu ruuxu afkiisa iyo adinkiisuba toosnaado oo uu xaqa asiibo wuxuu siinayaa man yashaau ciduu doonuu alla siinaya waman yu'ta ciddii la siiyo alxikmata xikmadda ruuxii la siiyaay faqad uutiya waxaa la siiyey khayran khayr baa la siiyey kaiiran oo aad u badan baa la siiyey khayr badan ayaa la siiyey macna marka middaa raadiyo wamaa yadakaru ma waansoomo oo ma waana qaato ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada fayow u saaxiibka a mooyaane yani dadka caqliga leh caqliga ilaahay siiyana ka faa'iidaysanaya kuwaa way kuwa marka la waaniyo loo caqli celiyo ka faa'iidaysta laakiin dadka caqligaalka ah ee wixii ilaahay siiyey aan ka faa'iidaysanayn ayagu si kasta haddii loo waaniyo shar iyo xumaan haddii loo sheego si walba haddii loola hadlaayo meeshoodii bay weli taageen isbedel male daliil waxay u tahay ruuxaas inuu caqli yahay saas way macana wma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamu wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah aw amase nadartum wixii aad nadartaan oo min nadrin nadar ah faina allaha alla yaclamuhu wuu og yahay wamaa lilaalimiina aalimiintana uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliya tani waxa wey wax alla waxaad baxsataan ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado ama nadar kasta ood gashaan ama mid saxoo shareecada ogashay hano ama mid khaldanoo shareecadu diidanta hano kulli ilahay waa ogsoon yahay subxana wa tacala waa ogsoon yahay maxaa laga wada waa ogsoon yahay waxaa laga wadaa wuu idinka abaalmaray haddaad waxaad baxiseen aad jid saxa ku bixiseen meel ilaahay ogolyo raalli ka yahay aad ku bixiseenna ajir baad ka helaysa wakadalika nadarkaad gashay hadduu yahay nadar shareecada waafaqsan kadibna aadan jebinina aad fulisay ajirkaagaad ka helaysa cagsi waxa ah wixii aad bixisayba waxaad ku bixisay meel xaaraama ilahay waa ku ogi nadarka aad gashaybaa wuxuu ahaa nadar xaaraama bini aadam baad nadar u gashay weli baad u gashay sheekh baad u gashay qabri baad u gashay mayd baad u gashay jin baad u gashay ila nadarka ilahan baa loo galay yani waxa weeyaan nadar shareecada khilaafsan haddii aad gasho ama xoolihii meel aan shareecadu ogoleen aad ku bixiso waa lagu ogyahay laguma mooga fa ina allaha yaclamuhu saas weya marka
ظالمين ترى إلهي أمهي وأهي لنا يمهل يا وحا لغوضا ظالم كوامك نفسي ظلمين وإلهي سبحانه وتعالى شرعي بيس خلافه وحوله ساء من نفتي ساء هذا الكيساء من فعل كيساء وشرعي كو خلافه وظالم ظالمنا إلنا أمهي لنكرت الدوننا إلهي ليمهل آخرنا إلهي على كيساء أمهي ليمهل معه وما أنفقتم به أعد إنسان أو من نفقة النفقات أو أما نذرتم به نذرتان أو من نذر النذر نذركم هي النفقات الوضع مد والباء صحي خلق عليه طيب فإن الله ألا يعلمه وأويه وما للظالمين كوا ظالمين تأمسوا من أنصار كوا أوهي لي ما إلها كوا أوهي لي وحلق من كرا المكشرة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي صدقاتي قرنا ديار بارونا إلى بحنا لكن مسيم وقتال بحنا مثل السفوس حديث الأولى بلاي انتبع فضل بدل تصل لحد المكان إن تبدوا حداد موجسان الصدقات صدقوين كحداد موجسان وصل أرك يوم وقتع ضد الإنسان فنعم شيبا نعمل هذا شيبا نعمل يا شيء هي متكا نعمل يا شيء هي وهي وطيع نفقرة في القصوية هذا معناه واحد سيدا مقتع بإحسان معه هي المخصوص بالمدعوة أما أنت متك اللي قولي وليهي هي وصدقها أبتدى مقتل بحسان وإن تخفوها هداب قريسان صدقري أو تؤتوها آتيسان الفقراء ضدك فقراء إباها آتيسان فهو كاس أو قريبا أي خير بدل لكم إذنك إذن خير بدل ويكفره تري عليه عنكم حق نوح إذن كثر إذن ضافيا من سيئاتكم حمايال كيما نوح إذن ضافيا والله أعلم بما تعملون واحد صغير إنسان خبير متكي معناه وحي ضاد كيسية قدي سعوه يا رب سبحانه وتعالى صدقنا حداد سمك تعود بحسان ولا سكت حداد قريسان وفكر سوريا الفقراء والسيسان نصاصا إذن خير بدل إلهي الدنبينا ويدين ضاف صاصي معنا أصل هو أول صدقاتكو إلي قرصويهم بأصل كساسا فضل بدل محايا لي آياتنا ولا قسمية وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لقى في سنة حديث 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله تضمن الروح المعلم تآخره الله سبحانه وتعالى عرشه سأوحرين دونه يحسن دونه حلقة يضمن الدبين وحكمل التضمن من صدق الله بحي صدقة الملك تيسا كديري ملك تيسا صدقة الدحين يسي دي احنا اين كور هلين سيدة أمو قريب معنى الروح ويكور هلين بدح oo kulligood hal qalbiga u wada taliyo oo man moogaanayso midig waxay bixinaysaa bidix laakiin waxa lagu xeel dheeranayaa wuu qariyay ilaa uu sigay xataa inuu isagii kala qariyo jirkiisa xataa qaar kamid inuu ka qariyo marka asalku waxa weeye sadaqada qarsoon baa fadli badan asalku waa sida waa xadiidka kale ah sadaqatu sirri yani maxay tudfi ghadab rabbi xadiid baa saxiix sadaqada qarsooni alla caaladiisa ayay damisaa marka asalku waa inay sadaqada qarsoonto saasa fadli badan laakiin marka qaarkood baa waxaa dhici karta inay timaado maslaxo keenaysa in la muujiyo inay khayr badato waa goorma waa markaad isleedahay ama lagugu daydaa oo kale marka aad isleedahay ama dad meesha fadhiya ama meesha jooga ama intay kugu daydaan ay sadaqa bixiyaan ama zakadii waajibka ay bixiyaan dayasho adiga ay kugu dayanayaan daraadeed markaasoo kale waxaa fiican in la muujiyo لأن مركا واحد سوغلتا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها مركا ضدك قراعي بقود يلي كفير سنية يعني وحيالها أي بحينيان أجل كيكينيان مما مدابيب الكينيسة مركا سوغلتا موچينتا فضل بالنارس سيمو خطول عركا إلى مبعيس لكن أصل كواحد ويان كريمتا أصلا ساسو معنا طيب فالمركا سوغلتا مويان انت بدون صوتكم على قريمته أي يفضل بالناتين وحي كفك تهي استسطسك إخلاص ليقولوا ده ساسو يعني إخلاص ليقولوا ده هاي طيب انت بدون هداد موجسان الصدقات صدقوين كهداد موجسان سيدا اللو بدون صدقوين كاسي كوة واجبك أو الزكاة هي مدة تضوعة أو صدقاء عادية لوضو يسوق ليها انت بدون هداد موجسان الصدقات صدقوين فالنعمة شيء بأن نعمية شيء هي أيضا أمانتك خسيري هي وطيع صدقتي معناها وحيان
موجنتي هي موجنتاس صدقة الموجيبا أمانتا كقوليليا صلى الله المعنى لوعا وإن تخفوها هدار قريسان صدقتي هدار صدقوين كهدار قريسان أو تؤتوها آتيسان الفقراء بكي فقراء هاي دليلها آتيسان فهو إخفاء هي قرينتا هي خير بدل لكم إذن كإذن خير بدل ويكفر وطير ألا عنكم حقنا من سيئاتكم حمايالك مئية دنبيدي إنه إلهي بكثير وعاكل آيات سنوبة إليسي إن صدقاء الله تحصنا يا إلهي أرضمضة أود من الله سبحانه وتعالى يعني حديث صحيح وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صدقاء خطيئة يقفك أيي بنساء أيها المغترة سيدا ضبكوا سيدا معناها بيهما أي أبختيان أدنيان ضبك sababtu waxa uu ruuxu markuu dambaabo sidii isagoo gubtay oo ka kacayo kale ka dhigay sadaqada uu la baxayna waxay ka dhigan tahay dadkii ka kacay sidii iyagoo baqtiisay damisay kale tamaan tayib marka sadaqaadka waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ee lagu dambi dalbo ayay ka mid tahay wallahu a'lamu bima ta'maluna waxa sameeyaan khabiirun kii gudihiisa iyo baadinkiisa og xog ogaal buu ilaahay u yahay waxba kama qarsoona hadduu wanaag yahayna waa laydinku abaalmarin haddii xumaan yahayna waa laydinka abaalmarin siro laysa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha ayadan Abdullah ibn Abbas waxay ku soo degtay saxaabada ridwanullahi alayhim markii sadaqaadka aad loo fay oo u diyaar garoobeen inay sadaqadii bixiyaan ba waxay lahaayeen dadkooda qaar kamid ah tolkooda oo gaala waxay yiraahdeen marka kuwan gaaladeen qaraabada ma waxba siinay kuwan ahlu iimaanka umma muslimin aayadana marka soo degtay bal ugu saxaya arrinka intu waxa la yiri laysa ma ahaan nabiyo عليك دشاد ما أهل هداهم هنونته هنون كودو عليك دشاد مصار ولكن الله ته ولكن لبس النقية الله يهديه وهنون من يشاء عدوده وما تنفقوا واحد إنسان من خير خيرنا فلأنفسكم نفذيالك من سبنا إذنكم بأسكالي وما تنفقون مدحين إنسان إلا ابتغاء وجه الله وجه إله ذالين تيسا درتي موحد وضحين إنسان إذنكم إلهي درتين بابا قلب عليهم وما تنفقوا إيه أد إنسان أو من خير خيرا يوفى ولا أوفيني إليكم إذن كان ليدين أوفيني أبا القدكس سيبا ما يسترم بالليدين سيني أبا القدكس ومعنا والحال بالليدين أوفيني أنتم إذنكم لا تظلمون أن ليدين دلمين إجوا الليدين كدلمين والليدين كدلمين بسبب بحلين سوى معنا ليس عليك هداهم على هذا وحويان ذاتك الهنورين صودا حول الله رحمه أهلي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما هنوك قيتي سلا waxay tahay aayadu ay ka hadlayso waa hanuunka waafajinta inay aqbalaan wixii aad ula timid qaataan hawl adiga ku talama ilaahay baa taa khaas la subhanahu wa ta'ala saasiya allah idu doona hanuunin oo khayrka waafajin ee adiga xilkaagu muxuu yahay xilkaagu waxa weeyaan inaad gaarsiiso una cadayso bas لكن إنه قاتانا قدونسنان ويلان وهو لله سبحانه وتعالى ساسويا مرحبا سيدات بحي يعني ضدك واحتركونا قرابتي نودا إيه إذن النمرة وحلقود ترياي حكون إذن وحويان إيه النقران والمسلمين أهل الإيمان حتى قرابة قالنا وحسيهم يعني وحنوت لدينا في سورة الممتحنة إنه رب الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلا بصوا فشان إلهي دين ما يقول عسكرا ساسنا قرابة أن دقالكم قولك شريف ودين كانوا قولك دقالي لكن يرجعنا سبحانه سبحانه وقالا إن أبوبار من السميسان الله إذن مدينه سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر وفي ويلة دي ما تتعليم سيد البخاري ويلة وقالا باوتي مركز النبي قد أوتي النبي الله ويلة وحجرت oo gaal abaatiyada ma xiriiriya siri ummiki nabi sallallahu alayhi wasallam hooyada xiriiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam saasina marka sida tafsiirka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waa sax hanuunkooda adigu malihid ee waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa baxsataan idinkum baaskal idina ila mara طيب wixii aad bixisaan wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wahwa wixii aad bixisaan Ilaahay dartii uu bixiya waa khabar bimaana al-amr khabar bimaana talab waa la dhihi karaa oo wixii aad bixinaysaan daraha kale isku hoosoodan ka daay magac raadinta iyo istustifta iyo ismaqashinta iyo daraha kale meesha ku wadataan ka daay Ilaahay dadkii uu bixiyo hadaba wax kaga doonaysaa way macna oo niyada hagaajis waxa kale oo ibn kathir uu dooranaya
عطاء الخراساني له كورين يا معناك وآلك وبدن ووحي ليه وما تنفقوا وحي آد بإحسان وما تنفقون ما بإحسان إلا ابتغاء وجه الله الدولي دي سمويه إذنكو وجه إلهي الدولي إنسان أمه وحب إحسان حتى إلهي دكي أب إحسان شيء لقاك عليه إلا دكتي أبو بحسين ماشا أبو ترجع شيء إنه قاعي إنه قاعي كان كقعي صدق أجل كاجي محمد بس أبو إله دكتي أبو كذب لأجل كاجي إله كسب لكن ما قاعد ماشا أبو ترجع مثل ما قاعي حتى أبيك يدا بيوم بالقوة أجسين صاصنا حديث كيبا في السيرة يوم النبي قد يجي صلى الله عليه وسلم يعني الناس يعني مين ما يحصل قيستي عاوة صدقا محسن صدقتي بما أرضيه ناجي ثانية عن تدو كشي وقال لي أنا بريزته وحلوش يفست عاوة ناجي ثانية وحلوش صدقتي حضروا الحلوة ولا صدق الله ولا نرضيه صدقتي بما أرضيه من غني أو باهمين بعد بيجي عندي صدقة كشي والله شيخ مقالدي الشيخ هذا صدق عليه وما تعمل عاوة من قنية وتأشي له وحلوش صدقتي مرصد حاد بدون إلى صدقتي سامركي سبحان من توجه قاعد سبحان والله وحي والله شيء حق إلهي والله نجي على وش شيء سبح ذي جور صدقة الله بعد إلى العقل مدة ثانية ده وحلا جينا ما إلى باهين بين الزمن والزمن إسكيت يسوي كم توجه وحلا جينا توجه إلى باهين بين يسوي إسكيت هاي كم غني أنا وحلا جينا إلى أم قصف هو ضرب صما إنه كبر كثير واضحي صما مركا واحد ويانا أدينا ماشي قاعدي حاول كنت هلما كنت ذلك لكن صدق هذا إلهي دكتي ولا ربح مرها ذات إخلاص يمنيه وربح لأتيك جوانا مسترين وما تنفقوا يعني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله عطاء الخراساني معناها مري ابن كثير موجود معناها غازي عمله الآن أحسن معناه وحلوه بس أوجع عمله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وح الله واحد بحثتان يسوي المسترام على الإنسان لئن كان فيه ما يوم ليس مأمن عليك بشار النبي وهداهم هنون تور إلى هنون سوء أقبلا وحي أغمتي يعني وحي قاتان حول أذيك بشار الله إلك الله بصارنا ولكن الله يهدي هنون من يشاء عد دونه هنون وما تنفقوا وحي أبي إنسان من خير خيرا فلأنفسكم نفياك نؤسنا وما تنفقون مبدئين إلا ابتغاء وجه الله وجه إله الذي سموه وحكا لإذنكم وبحنسان تاؤل إذنكم أبحية تاؤل أضاب أبحسان بس أتك النوالد وما تنفقوا وحي عبد إنسان من خير خيرا يوفق والأوفين وصيبا ما يسترم بعض إذنكم أوفين إليكم منك والحال أنتم إذنكم لا تظلمون أن لإذن ظلمين إذنكم لإذن كدونين إذ كلنا لإذن كسينين لإذن كانوا سقابين بعض المسين للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله وعاد من هذا السؤال كلام الله صدقني واضحين لكيان سنة صدقني يا مرن والله سنة وات للفقراء بأسق لا تصدقوينك الصدقات صدقوينك للفقراء بأسق لا الفقراء الذين فقراء أحسروا شرعي في سبيل الله تشدك إلهي تحديث المشرعي لا يستطيعون يعني الفقراء لا يستطيعون أن أولي كريم ضربا صعب في الأرض لوك الحديث المصعب مصر أولي كريم لوك الحديث كسفراء والقناع السئية إنه صوت يعني قناع سنان أما صوشة كيفتان أسفراء يحسبهم وحو ليليا الجاهل متك حال كودة كالجاهل روحا أقولين حال كودة غوص وقور حيني وحو ليليا أغنياء إليهم وحو لليك من التعطف إسئلالين إسبوريد دراسة سئل علينا يا يقول سويه منك أنا قلوب بإسلام وركوني والذين في المعنى طيب تعرفهم وأذكرهم ربي سبحانه وتعالى بسيماهم أفطامه دي علامين كذا قرنس يعني إيه بهيهم أفطامه علامين أيلين بشروا قرني لا يسألون موي بسنية الناس ضدك موي بستان إلحافا كعلم يعني السكع العليم ضدك وحموه بيستان ومتوك صلاة وما تنفقوا وحي عبد إنسان من خير خيرا فإن الله الذي يسأل عليم كي يسوي حدوه بي هنا أبا القدب ذكسيه معنا صدقات وحا اسكروا أمنا كون فقراء فيه الذين أحسروا في سبيل الله إحصار كوحل لهذا ومنعه مركي له الشرط
sharida waa diidida way macna yani jidka ilaahay dhexdiisa lagu sharay ku egihin jidka ilaahay ku egihin macna waxa weeye waa muhaajiriintii nabiga la soo hijrootay sallallahu alayhi wasallam heegana u ah oo shaqo kale aan lahayn oo u taagan inay ilaahay jidkiisa ku jihaadaan saasuna uhsiru fi sabilillah macnaheedu waxa weeyaan jihaad iyo duulaan bay u diyaartay ma awoodi karaan maadaama hawsha ay u taagan yihiin ma awoodi karaan inay dhulka ku safraan ganacsi aadaan suuqa galaan ay wax soo rogrogtaan maxaa yeelay hawl qaran bay u taagan sooma hawshii ummadda iyo diinta iyo dalkay u taagan kuwa noocaasoo kale ah iskale rabbi subxaana watacaala fuqarada nimanka nooca hawshaa qabanaya fuqaradooda ayaa iskale waa la sii tilmaamay oo waxaa la yidhi yani nimanka dadka noocaasoo kale ah waa dad dhowrsoon dad baahidooda banaanka soo dhiga maaha dad ilaahay baahidooda u dhiibta waya oo hoos geysta laakiin addoommadu baahidooda kama warhayaan ruuxa aan aqooninoo hoos uga warhayninna markuu arko wuxuuba isleeyahay wallahi kuwani waa ladin waa niman aqniya maxaa yeele maradooda waa u dhaqan tahayo yani kuwa waa u saliidaysan yihiino dadkoodaa bulshadaasi ku dhex jiraano gacankuuma hoorsanahayaano waa dad bulshadaas waxaadii wallahi waaba bulshada kuwii ugu rabnaa hoos iyo xogtooda haddaad raadisana yani waxa uma hayaan tacafuf iyo isdhawrin ay addoommada iyo baryadooda iska dhowrahayaan bay macnaha waxa weeyaan jaahilku saa ugu malaynaya rabbi wuxuu waxaad ku garanaysaa astaamahaasi macnaha waxay leeyihiin yani waxaa ka muuqanaya ruuxu markii uu baahan yahay baahidu wejigiisana way ka muuqan waxa kale ka muuqanaysaa dharkiisay ka muuqan waxay ka muuqanaysaa walowgiisa kuba sheegan waxay ka muuqanaysaa jidhkiisa ruuxii caato weydsanaan nafaqa la-aan waxbaa ka muuqan tacrifuhum bisimaahum astaamahoodii calaamadooda ku gar dadka ma weydiistaan oo si ku celcelina uma weydiistaan halkaa waxay leeyihin culimmadu lagama wado ku celcelin uma weydiistaan waxaa laga fahmi karaa laakiin hal mar iyo laba goor way weydiistaan soo saa lagama fahmi karo hebel weydiisiga dadka kuma celceliyo haddii la dhaho macnaha hal mar way weydiistaan way maana soo lagama fahmayo fahamkaasi meesha kuma jiro maxaa diiday fahamkaa waxaa diiday mina tacafufi samayna soo mar tacafuf inay dhowrsoon yihiin waxay keenaysaa inayna hal marma dadka warsanin waxaa kaloo diidaya fahamkaa jaahilku xaalkooda aan ka warhaynin wuxuu moodayaa aqniyo hal mar hadday dadka gacanta u hoorsan lahaayeenna waa la ogaan lahaa sooma marka sidaas daraaddeed ilxaaqanta macnaha laga fahmayo oo ah inay marmar weydiistaan meesha kuma jirto macnaheedu waxa weeye bataatanba dadka wax ma warsadaan mana weydiistaan baahidoodana ma soo hordhigaan ilaahay subxaana watacaala ayaa baahidooda si hoose u og saas way macnaha lilfuqaraa'i bay sadaqaadku u sugnaadeen fuqarada alladiina fuqaradaasoo uxsiruu la sharay fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa lagu sharay yacni jidka ilaahay bay ku eg yihiinoo duulaan iyo ghaswi bay diyaar yihiin ama inay shaqaystaan bayba tabar waayeen oo macnaha tabar la-aan baa ku dhacay sida dadka naafada iyo dadka curyaamiinta iyo saasaa dhihi karta laa yastatiicuuna ma awoodi karaan bu rabbi subxana watacala laa yastatiicuuna kuwaasoo laa yastatiicuuna aan awoodi karaynin darban socod fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safray oo maxay u socdaanayaan yani inay soo ganacsadaan oo wax soo rogrogtaan oo risqi raadsadaan inay u safraan ma kari karaan hawl kale ku mashquulsan yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka jaahilka oo xaalkooda ka jaahilkii wuxuu mood u malaynayaa aghniyaa inay yihiin kuwo haniyaal ah waxaysta min atacafufi ilaa shamida daraaddeed ay ilaashan yihiin dhowrsoonida ay dhowrsoon yihiin daraaddeed buu saa ugu malaynaya waa baahan yihiin laakiin waa dhowrsoon yihin marada ay qarisay baahidooda waa isdhawridda saas way macnaha yani waman tacafafa yucifuhu llah ninkii isdhawra oo bini aadamka iska ilaaliya ilahi waa ilaalinaya subxana watacala waman tasabara yusabirhu llah ninkii sabir iska raadiyana ilahi subxana watacala sabir macnaha waafajinaya bini aadamka baahidaada haddaad mar walba u barato inaad hor dhigto ilahay wuxuu kugu ibtilaynayaa gaajo aan marna dhammaanayn iyo baahi aan dhammaad lahayn maalinta qiyaamadana waxaa lagu keeni doonaa wejigaaga iyadoo cad hiliba uusan ku olin lafihii oo keliya banaanka yaalla marka tuugsigu ma fiicna baryaduna ma fiicna nabiguna sal lay slam wuxu uhi miskiinku ma aha midka qoqollada wareega oo xabad timira haddii loo dhigo ama laba xabad timira laabanaya maaha laakiin miskiin waxaa la yidhahdaa waa ruuxa baahan dadkuna ayna ka warhaynin waxna aan lagu sadaqaysanaynin miskiin waa kaasoo rasulku yuri sal lay slam
وإما إمسا شاتك أعديه ما أنت نوحي كقضيان عن هسن برشدنا أين كورحي صمضنا كون نوع عصو كلام مساكين برسولك صلى الله عليه وسلم ويوح لقصة صدقه يستمضان ساسو طيب تعريفهم واد قرني بسيماهم أصطامه دي علامته على موين كذا فوق قرنسا لا يسألون مويديسان يعني الناس ذاتك مويديسان يعني وحمور صدان ومكتوك صدان إلحاقا كعلعلن إيه كعلعلن لآن تونضتك وحمويديسان وما تنفقوا وحي آد حسان أو من خير فإن الله عليم متكي أكسون ويبيه السك حالة الصدحة أيات شراء اللي أقول يا هي بريضة إيه توكسية حالة الصدحة مركو الروح وقبعه حديثي معناه وحوي قبيسة أيام معناه وحوي عديني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كوا ينفقون بحني أموالهم حولهم بالليل هبينك والنهار مالنتي سرا سقر سودئة وعلانية إيا سعدانا لوضب بحني فلهم وحا أسبنا ذي أجرهم أجر كذا أسبنا ذي عند ربهم ربي والأكتي ولا خوف عبسنا ماهن عليهم دشور آخر ولا هم من يحزنون كوا مرقو الدنيا وحي أكسيغي وأيكوهين كمرقي مايا حالد والبدد كمؤمنين تأتاقنين وقت صدقيتان هبينكي مالنكي سعبون حل والبيا حالد والبواحي دياروه إنه صدق الله بحان كوا النوع عاصو وكلا أجل كود إلهك تيسي كله معناه وحالينا بريا صدقاء هذا هالمرون هلا في السنة هل حل هلا في السنة دسك غاربا رمضان ما يوحك لما حل كلام واحد لا مرة قال باسنة منه صور يقول زكاة حولي زكاة قويان مويانا آن شيلين كلام بحيني ورهبين إيا مالن هداد باهمتي هداد درسنتي هداد غنيتي هداد فقير تايبة واحتحسق عادي كله صاصي معنا كوا النوع عاسى أشير كذا إليها كيسي كله ما أنت قيامة عبصن ما يانا هول كقيامة لباتوين كذا قبل قليب كيس هي قيامة لباتوين كذا كعبصن ما يانا الدنيا وحي أي كسيغين أما الدنيا وحي كسيغين كمرقي ما يانا هذه يعني وحوقاء أدفيليسي وإن السيدة أتسوقيسي أدوي سو مرقي ميت قناعت سيقي ما أنت علابتي كوسو دكتي ما يبدل كاد إسلاحيد واحد كيلي بقول كي وبقول حداد بقول كي وبقول كو خسارت سو مرقي ميت لكن هدي اللي إلى هذا حولي الرأس مالكا هي فائدة دي أتكهل الهيد هي إن كلا لقود ضريبا هو markii aad murgi lahayd ba hoostaada la soo dhigo miyaa ka murgi umurgi meeshin macay le wax yaani kaaga filan baa lagu siiyay Soomaa marka waxaynan adduunyo uga murgaynin aakhira waxa la soo hordhigay baa ku filan adduunyo marka maxay tahay saasiya alladina kuwa yunfiquna bi inay amwaalahum hawlahooda bil layli habeenkii iyo nahari maalintii sirran qarsoodigu bixinay iyo calaaniyatan adan falahum waxa usugnaday ajruhum ajrkooda usugnaday inda rabbihim rabbigooda agti ولا خوف عبسنا عليهم دشوا ما هانن ولا هم من يحزنون كومر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس آيات في الصدقات كهلاي يدتك ولا السن حوله هذا شيء وقف إذا سن الآيات هي يلا الصينية مركي أنت على سوق بقبي كذب ضدك حن حولها إلهي سحن واستعمال أما تشدح كشقيست كواس لقاه صاص معنا لأن القرآن كاوحي يهي مثاني وحويان معاني اسكول لمان أو اللبا أيو اسلام لقاه يا قرآن دنبيليال بالغاه اللي بدون وناكسن بالوحج أهل النار بالغاه اللي أهل الجنة لقاه وهكذا صفات كي منافقين تلقاه اللي صفات كي مؤمنين تلقاه قال ذي بالغاه اللي مؤمنين تلقاه وهكذا ساسا مثاني قرآن كويه ما دام مركزتك أهل الإيمان كأعماشو دي يسيدوا إلهي للربي لقصوا هاللي دتك حن يطبقن كوضا إيه حولها ميش سي أشقيستان إيه ميش يكون بحيا وإن لقاهم سيلين ويبدقوا الثاني إنك الدقين ونقول نغطوي الذين كوا يأكلون عنيا الربا ذكر عنيا لا يقومون ما استاغيان قياما قبور توضا كما استاغيان إلا قياما استاجد مويه إلا كما يقوم صدق ويستاجه أو كلام مويه الذي متك يتخبطه ودندان شيء الشيطان كمتك ودندان شيء استاجي سو كلام مويه من المس تابشة درتد أما والد درتد يعني وحويان وللردي
إلا كما يقوم سيده ويستاغ يمويه الذي متك يتخبطه يعني وحوي كفكفينيو أما هادينيو أما يعني دان شيء الشيطان كميدكو دان شيء سيده وكعمويه من المس تاوش درادت الشيطان باتاطي ساس درادت بالوضع دعيه ذلك كاسنا سببتي سوح ويان بأنهم يجوا قالوا إلى يدهدين إنما البيع إيبكو مثل الربا والربا ذكر إيبي الربا معاه ودعي أو نسكم ده صاسي كدودين وأحل الله وحي حلالي البيع إيبكي وحلالي وحرم وحي حرامي ودين الربا دين وحرامي فمن جاءه عدي يؤتماد موعدة وانو من ربه حق ربه روحي وانو وقتماده أو فانتهى تشوكسده ربا دي كتشوكسده فله وحا أصغنا لما سلف وحي هرمري انت واندو سوقاني وحي هري وقطعي استقالي والله يستوي معنا وأمره أرنكي سنة إلى الله حق إلهي وعام ومن عاد الروح اللابتا ومركي واندو سوقاني كذب الربا كل عطاي فأولئك قواسي أصحاب النار سدد كريوي هم يقون فيها النار تدحيدا خالدون كوكواريو آيات كان الربا دي بكال يعني ribadu waa nooc kamida waa qaab kamida qaababka loo kasbado xoolaha loo shaqeysto waana qaab iyo dariiqo shariicada islaamku ay diiday way ribadu marka waa dhowr nooc way horta asalkeeda waxay u kala baxdaa riba al-bay' iyo riba ad-dayn riba al-bay' waxay gashaa waxyaabaha la isdhaafsanayo ee macnaha waxa weeyaan la kala iibsanayo cuntooyinka la isdhaafsanayo cunto lagu gadayo way gashaa sida mesela waxa way maartay burka oo kale iyo shaciirta oo kale way gashaa cunto la dhaafinayo lacagaha la isku sarrifayna way gashaa dahabka iyo fidadana way gashaa taa waxa la riba al-bay' baa waxa la doonayaa labada shay ee la isdhaafinayo hadday isku mid yihiin inay islana eg yihiin meesha marka la taagan yahay lagu kala qaato labada shardi mid kamid hadii la waayo riba la galaya waa riba al-fadl baa leeyahay tayib hadii labada shay ay kala gadisan yihiin oo mesela ay tahay bur iyo bariis oo kale ama bariis iyo shaciir oo kale laba shay oo kala gadisan hadii la isdhaafinayana oo la isku iibsanayana waxa la doonayaa meesha in lagu kala qaato laakiin way kala badnaan karaan hadday isku mid yihiinna waana inay isla ekaadaan meeshana lagu kala qaato sooma hadday kala gadisan yihiinna way kala badnaan karaan laakiin shardigii ahaa waa in meesha lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin la kala gudoomo shardigaasaa weli baaqiya waxaa la mid ah oo shuruudaasi iyadana galaya lacagaha la isku sarrifay haddii meesha lacagtii la isku sarrifayay hadday isku jinsi tahay oo ay tahay masalan dollar iyo dollar shilinkiin iyo shilinkiin shilin Tanzania hadii lacagta la isku sarrifay isku jinsi tahay waxa la rabaa inay islana eg tahay 100 iyo 100 marka labaadna in meesha lagu kala qaato oo iyadoo la kala dhaqaaqin nin walba wixiisii u qaato labada shardi mid kamid ah hadii la waayo waa ribo al-fadl baa leeyahay lacagaha la isku sarrifayo hadday noqdaan laba jinsi kala noqdaan dollar iyo waxa la isku sarrifayaa iyo mesela shilinkiin yandha way kala badnaan karaan oo midna waa 7500 kana waa $100 kala badnaanshahaasi dhib male laakiin shardigii ahaa waa in meesha lagu kala qaato inta la kala dhaqaaqin waa in la fiiriyo shardiga hadii la waayo riba la galay taas macna nasii'u marka ku imaanay ribada noocaasa lacagahay gashaa dahabkii baa soo galay fidada soo galis ama ha noqdo dahab la leeyahay oo marka la xidho ama midka laga ganacsado ha noqdo كل شروطها صلى إلى رمية لوضع شرطي هذا اسكو جنسيهن هذا كلا جنسيهن هل كان شرطي أو إن ماشى له كلا قاطع خيبة الدين يدا وحي كنت ماذا دين تلا كلا قاضنا يو أصل كدين توحويان وحشرعه وقلت لك شيء إنه نقض شيء ليس قصة مفلق دين وصة مفلق شيء اللي جف إذا الروح وحكيه لما هذه انت ضدك واحد دينيسو دينتي وحكاسو قران oo wax lagu saaro ayadana waxa la yiraahdaa riba dayn baa la yiraahdaa riba dayn waana ribada caanka ee jaahiliyadii islaamku markuu soo degay ribada ay carabtu ku tacaamuli jirtay midaas nin baa wax daynaya waqti baa la qabsanay hal sano kadib bil hebla ayaad ii keenaysaa ii soconaysa bishii markii la gaaro buu wuxuu leeyahay
ima an taqdiya wa ima an turbiya laba mid ama dayntii ii gud ama wax ii saar hadduu markaa heli karana wuu gudi haddii kale wuxuu leeyahay warniyahow 10 kun bay ahayde bal 1 kun baan kuu sareeyay muddada wax iigu dar way hees 10 sano kala kugu daray waqtigii haddana marka la gaaro wuxuu leeyahay ima an taqdiya wa ima an turbiya ama wax ku dar aan muddada kuu kordhiya ama lacagtii keen ya ayuha alladina aamanuu la ta'kulu riba adcaafan mudaacafatan wata kolba waa soo labanlaamaysa way labanlaami kolba way labanlaami ribada noocaasa riba dayn baa la yidhahdaan waana loonka hadda ay bixiyaan bangiyadu bixiyaan soo saasma waana loonka deymaha bangiyadu bixiyaan ama mu'asasaadka maaliga hadda adduunka ka jira oo kulligood riba ku salaysan wax yar mooyaane deymaha ay dadka dugsiiyaan waa noocaas saas macna yani ama gurigee ama yani hanti kala gee daynta lagu siinayaay dulsaar bay wadataa saas macna dulsaarkay wadataa waa ribada noocaas ribada noocyadeedu dhan labada noocba ama riba fadli ha noqoto riba nasiya ha noqoto riba beec ha noqoto riba dayn ha noqoto meel alla meelay ku timaadaba waxa la leeyahay joojiye ribada sababta loo joojinayo shariicadu u diidaysana waa nooc dhiig miirada ku jira maxaa yeelay ruuxan kadaata uu lacagta dul saaranayahay wuxuu bulshada kusoo biiriye ma jiro dhidid kama daadanin ma shaqaynin beer ma falin ganacsi ma keenin oo ma ordin waxba meeshii kuma soo biirinin meeshuu fadhiyaa wuxuu ku fadhiyaa kursi buu ku fadhiyaayo dadkii unbuu lacaga dul saaranaya soo celinaya way qaadanayaan muxuu shaqeeyey marka ya ninkan un dadka xoolahoodii gurtay marka dhiig miirad baa ku jira riba meelay ku timaadaba dhiig miirad baa ku jira waxaa ku jira shay daqiiq aho rabbi subxaanahu watacaala cillada uu xarimay macnaha aladiina kuwa dadka marka ribada cunaayay ilahay agtiisa subxaana watacaala aad bay uga fog yihiin wuxuu rabbi leeyahay subxaana watacaala kuwa ribada cunaayay maalinta qiyaamada marka la tago qubuurta marka laga soo kacayo qaab lagu garan doono oo dadka oo dhan ay ku aqoonsan doonaan bay usoo kici doonaan waxay soo kacayaan ayagoo kufkufaya iyagoo hadhaadaya ama meehe takhabudka waxa la yidhahda macnaha waxa weye yani daandaan yani ruuxu markuu intuu yani waalan yahay ama intuu khamro cabo uu dhacdhacayo soomada kolba dhinac ku kufay yani daandaan baa la yidhahda ama macnaha waxa weye hadhaad ama kufkufid ayagoo saa u dhacdhacahaya bay qubuurta ka soo kacayaan sidii mid shaydaan taatay oo kaleeto midka shaydaan taatay waxa laga wadaa ruuxa markuu jin galo masigani waa jinka galkiisa wey shaydaanka jinkii baa laga wada jin markuu ruuxu galo oo uu waasho maskaxdiisii bedelo soo ma dhacdhaco sidii ruux waala loo dhacdhacayo suuxdimo qabo oo kaleeto sidiisoo kale usoo kacayaan bu rabbilahi subxana watacala maalinta qiyaamada waa astaan iyo calaamo lagu garan doono dadkani inay yihiin dadkii ribada qaadan jiray oo cuni jiray waa fadeexoobeen sooma marka maxshar khalaa'iqdoo dhan isugu timid baa lagu fadeexaynaya qaabkaasi usoo istaagaya saas way macana sababta maxaa nimanka saa loogu ciqaamayo saa loogu gelaya sababta saa loogu gelaya waxa weeye ilaahay beec iyo iibkii uu xalaaleeyey iyo ribadii uu xaaraameeyey baa waxay yidhahdeen soo isku mid maaha waa un isku mid inama albaycu mithlu riba bay dheh waa siday hadda dad badani ku doodayaan oo kaalay haddii shilin lagu gado maxaa ka macna badeecada iyo alaabta hadda la keenaba waxaad ku soo gadatay wax ka badan baad saaran kartaa shilinkaan haysta haddaan shilin saarto sheekhow soo iib maaha saasuu ku leey soo iib maaha inama albaycu mithlu riba wey tanna beec baa la yidhahdaa tanna riba la yidhahdaa ribada ilaahay waa xarimay beecana ilahay baa ogolaaday subxana watacala ilahay baana addoommadiisa u taliy wuxuu doonana ilahay u dejiyay subxana watacala saas way macana ninkii marka ay u timaado waana u timaado waanada ilaahay iyo sharcigiisu ruuxuu soo gaadho wixii horay uga dhacay oo intuusan cilmi yeelanin oo arrinta ogaano wixii horay uga dhacay cafa allahu camaa salafahu looma haysto falahu maa salafa isagaa iskale taas laakiin markay soo gaadho kadib oo uu ogaado mucaamaladani inay ribo tahay shareecaduna diiday markuu ogaado kadib ninkii kusii madax adaygaayay dadka noocaasoo kale ah naartay gelayaan waana ku waarayaan bu rabbilahi subxana watacala saas way macana ayib mucaamalaad fara badanoo noocaasa jira oo hadda ribowi ah shaki ku jira inay ribowi yihiin oo haddana dadkii kusii madax adag yihiin magaalada hadda isbaniya la yidhahdo oo meeshan ku taalla tanzania iyo kenya xuduudeeda dad baa ilaa hadda waxay ku tacaamulaan mucaamaladii ninkii la odhan jiray sajaad uu soomaalida ku dhacay weli rag baa kusii marxaday intaasoo goor bayna weydiiyen oo u sheegnay inay ribata haddana waxay ku leeyihiin sheekh hebel baan weydiinay oo yidhi wax dhib ma leh wadaad aan masaladaba lama soconinba oo ama loo su-aal xumeeyey
ama fiqhigiisiiyo fahamkiisuba intaa gaadhsiisan yahay baa mas'alada loo dusini markaasuu si fudud wuxuu isaga dhihi dhib ma laha kaasaa marka lagu dhegi 100 wax haddaad akhrido lagaa yeeli maayo taas way macana mucaamalaad aad u fara badan oo waxaa jira marka shareecada khilaafsan oo ribowi ah oo ilaa iyo hadda dadku ku dhagan yihiin aynan ogaadeen inay xaaraamto bangiyadii baa lala tacaamulaya deynta laga qaadanaya waana la ogyahay inay xaaraamto wadaadbaa maalin baneeya baa lagu leeyahy wahaakada ninkii markuu ogaada kadib sii wataay naartuu gelayaa jahannama weligiina ka bixi maayo waa la leeyahy subxana watacala taa lagu talagala marka aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya arriba ribada kuwa cunaya laa yaquumuuna ma kacayaan oo ma istaagayaan oo qubuurtooda kama kacayaan ilaa kamaa yaquumu sida uu isu taago oo kala mooye alladii midka yatakhabatuhu uu daandaanshay ama haadhaadiyey ama uu kufkufiyey ashaydaanu shaydaan midkuu kufkufiyey siduu u istaago oo kala mooye min almasi taabashada daraaddeed uu taabtay shaydaankaa taabtay oo galay macna aayadda halkaa waxaa loo daliishadaa mas'alada masiga jinka inuu bini aadamka galo inuu waasho ama uu macnaha suuxana uu keenaayey waa mas'alo qur-aan ku tilmaamay wey saas macana ayib dalika arrinkaas saabitu waa sugan yahay in saas ay qubuurta uga soo kici doonaan waa wax sugan biannahum sababkuna waxa wey biannahum iyagu qaaluu waxay yidhahdeen inama albaycu iibku mithlu riba waa un ribadoo kale bal hadalka say u dabarogeen fiiri waxay leeyihiin ribadu daliil uma baahnee laakiin yaa daliil u baahan beecaa daliil u baahan markaase waxay dhaheen beecaa muran ku jiraaye beecu waa ribadoo kale ribada iyada muran maleba bedelkay dhihi lahaayeen inama alriba mithlu lbayc ba waxay dhahdeen inama albaycu mithlu riba waa cinaad diiddo oo ilahay aayadkiisa ay diidan yihiin wa axalla allahu ilahay wuxuu xalaaleeyey albayca iibkii buu xalaaleeyey wa xarama wuxuu xaaraameeyey alriba ribadii wuu xaaraameeyey faman ja'ahu ruuxay u timaado mawcidatun waano oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaad ama xagga rabbiga ay uga timaado oo aayaadkii diidayay ribada uu ogaada oo fantahaa joogsada ribadii ka joogsada falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray wixii hadda kahor uu qaatay oo siyaada ah oo hormaray mucaamalaadkii ribowiga horay u dhacay isagaa leh ka dabatag male yacni intuu qur-aanku uusan xarimin ribada mucaamalaadkii ka horreeyey ka dabatag ma laha jaahiliyadii dhacay waxaa la mid a ruuxu isagoo hadda muslim ah baa mas'aladan waxaa ka qarsoontay inay ribo tahay mucaamalada inaysan ahayn wuu galay ama wadaad baaba u fatwooday oo markaasuu saa ku galay gadaal buu ka ogaaday inay ribo ahayd wixii jahli u geeyo horay u dhacay isaguna uusan gaabinin falahu maa salafow leanna waxa weeyaan cilmigaa ka dambeeya cilmiga ka hor wixii dhacay ka dabatag ma leh wa amruhu arrinkiisuna ilallahi xagga ilahay buu ahaaday yacni ruuxa ka hadhay ribada arrinkiisa ilahay buu ahaaday ilahay baa u dambi dhaafay ama ribada arrinkeeda ilaahay baa lahoo allah xalaalayntiiyo xaaraamaynteeda iskale wa amruhu ila allah waman caada ruuxii laabta oo ribada mucaamaladeedii iyo ku dhaqankeedii iyo cunitaankeeda ku noqda fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta dadkeeda wey hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku hadhaymi yamxaqu llah alla wuxuu tirayaa alriba ribada ayuu ilahay baabi'inaya wa yurbi wuxuu siyaadinayaa alle alsadaqaati sadaqooyinkana ilaahay wuu kobcinaya wuu siyaadin wallahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin gaalnimo badane kulligii asiimin oo haddana dembi badan mid gaalnimo badan oo haddana dembi badan oo riba qaata ilahay ma jeclo subxana wa tacala yamxaqu llahu riba ilaahay ribada wuu baraka tiraa maxqiga waxaa laga wadaa ribadii xoolahaagii oo dhan in ay tirtirto waa suurtagal marka hore faa'iido weyn baad ku dhufan laakiin faa'iidadaa weyn waxaa laga yaabaa inay keento intuu ilaahay ku ciqaabo xoolahaagii oo dhan inay eber noqdaan waa suurtagal ood cayr ku soo baxdo waxaa kaloo suurtagal ah xoolihii inay kuu joogaan laakiin ay baraka la-aan yihiin markaana barakadii baa laga tiraya ilan xooluhu haddayna baraka lahayn xoola ma ah xooluhu waxay xoolo ku yihiin inay baraka leeyihiin barakadii baa laga qaadaya maxaa yeele waa xaaraam ama waxaaba dhici kartaba inay tirtirmaan oo ribadu xoolahaagii oo dhan ay la kacdo waa suurtagal raggii kenya ugu xoolo badnaaye soomaalida boosaskoodii iyo yani dhulkii ay lahaayeen baa maanta bangiyadu mid mid u gadanaya hebel iyo hebel carwagaasi balbaada nin baa ka soo hadhay waxaa lagu leeyahy wuxuu lahaan jiray 200 oo baabuur intaasoo gurina waa ku lahaa waddanka maantana wax weeyaan isagoo oo sakaraad ah oo duqoobay ama dhintay
ayaa waxa weeye boosaskiisii bankiyadu ay guranayaan iyo xoolihiisii handidiisa maxaa dhacay yamxaqu llahu riba baa ku habsatay sooma qiso hariiba waagaan australia tegay baa waxaan akhriyey journaal ay soo saarto jaaliyadda carabiga ee australia degan journaalka waxaa ku yaalay 2 nin oo bakistaaniyiin oo walaalo ah baa bangi waxay ka daynsadeen lacagtii bay guri ku gateen ayagoo habeen marka gurigii dhex jiifa ayaa gurigii dab qabsaday meel uu ka yimid aan la garanayn si halhaleel ah bay dirishada uga boodeen lafahoodii bay la carareen hal shay mayna kala bixin guriga isagii oo dhan waa la soo gaari waayay daqiiqado gudahood intaan dabdabiskiina soo gaadhin buu daqiiqado gudahood gurigii wuxuu noqday dambas haddii la tegay oo la baadhay oo gurigii la faagay misxaf qur-aanaa meesha yaallay misxafkii baa loo tegay isaguna waa gubtay hal aayad baa ka soo cad qur-aankii dannaa yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat oo iyadu fayow baa meeshii loogu tegay soo daliil cad maaha daliil cad yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat marka ha dhayalsanin xoolahaaga ribo ka ilaali ama intan kaleetay kuu qoonsan ama hadday xataa wax kuu joogaan wax barakale ma ah saas way macnaa cadaab ilahina waa ku laaban wa yurbi sadaqaatna waxa weeye sadaqadu xoolihii laga bixiyeyna way korisaa ayadana way kobocdaayoo saynu horayba usoo sheegnay xoolo xalaala markuu ruuxa muuminkaa sadaqa ula baxo ilaahay wuu u koriyaa wuu u kobciyaa ilaa ay buurta uxud kale ekaato sida mid idinka midaba uu darmaankiisa iyo faraskiisa u koriyo saasoo kale ilahay kobciya subxana wa tacala wayurbi sadaqaat sadaqada marka ku dadaala xoolahay kobcisaa iyadoo way kobcdaa laakiin ribada iska jira way macana yamxaqu llahu alla wuxuu tiraa oo baraka tiraa ama baabi'iyaaba arriba ribada ilahay waa baabi'iyaa wayurbi wuu kobciyaa oo wuu siyaadiyaa asadaqaati sadaqooyinkana waa siyaadiyaa xoolahana waa ku siyaadiyaa yani waxa weye iyagana ajirkoodana waa siyaadiya iyo sababka laga helay wallahu allana la yuxibu ma jecla kulla kafaarin ufiirsada kafaarin gaalnimo badana kulligii asiimin oo haddana dembi badan ilahi ma jecla subxana wa tacala waa kee waa ribaqaataha bay hadalladaasi ku dhacayaan ina aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan oo waaqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey oo waaatow wuu bixiyey azakaata zakada siiyey lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkoodaa usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfun cabsiin calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inahani yaxzanuuna kuwa murka dadka mu'miniinkii iimaankii camal saalixa isku darsaday salaadii waajibkaay la tukaday zakadiina xoolahooda ka bixiyey ajirkooda ilahay agtiisay ku leeyihin mana cabsan doonaan maalinta qiyaamada mana murgi doonaan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan oo waaqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey oo waaatuu siiyey azakaata zakada siiyey lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkoodaa usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfun cabsina calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inaan hanin yaxzanuuna kuwa murga yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow ittaqu llaha alla ka cabsada alla iska jira oo wadaruu ka taga maa baqiya waxa hadhay oo min arriba ribada ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad tihiin dadka iimaanka lahu ilahay ciqaabtiisa iska jira alla ciqaabtiisa waxaad u adkaysan kartaan xamili kartaan meehee iska jira kana taga ribada wixii hadhay maxaa laga wadaa mucaamalaadkii aad gasheen intaynan aayaadkani soo degin ee ribada ahaa wixii horay aad u kala qaadateen la garay laakiin wixii hadda laaban oo weli aydan qaadanin daaya saas weeyaan macnaha waxa weeyaan ila qur-aanku markuu degahayey intay aayaadkani ayna soo deginba bulshadu way mucaamali jirtay mucaamalaad baa dhex mari jirtay mucaamalaadka qaarkoodna ribo way ahaayeen ribadii horay loo wada galay qaarna waa la kala qaatay siyaadadii iyo waa la kala qaatay qaarna weli waa laaban tahay ta laaban iyada ha qaadanina la yidhi wixii hore oo u qaadateen la garay saas way macnaha haddaad mu'miniintihiin oo iimaan aad leedihin way macnaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow ittaqu llaha alla iska jireeyey ciqaabtiisa oo wadaruu ka taga maa baqiya waxa hadhay oo min arriba ribada wixii soo hadhay iska daaya wixii aad guddoonteen oo horay u qaadateen mooye waxaydaan weli qaadanin daaya way macnaha ka taga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa alla rumeeyey haddii iimaankiina uu dhab yahay ninkii iimaanku dhab ka yaho aakhiriya alla rumaysan si dhab u rumaysan ribo waa ka cararaya shaki malaha fain lam tafcaluu haddaydaan falin oo aydaan ribada hadhay daynin oo faraha ka qaadin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal
oo min allahi xagga alla ka ahaaday iyo warasuulihi rasuulkiisa wain tubtum haddaad soo noqotaan haddaad ka soo noqotaan falakum waxaa idin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkood raasamaalkiinaad leedihin laa tadlimuuna ma dulminaysaan dadka aad mucaamaladu dhex marto dadkaad daynta siiseen ma dulminaysaan walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo haddii aad yeeli weydaan baa layidhi oo ribada iska dayn weydaan oo bulsho yahay aad ribada ka waantoomi weydaan waxaad ogaataan dagaal alla iyo rasuulkiisa xaggooda ka socda allah idinla dagaalamay subxana wa tacala saas way macnaa dhaqaalihiinaa lala dagaalamay nabadgelyadiinaa lala dagaalamay dawladdiinaa lala dagaalamay wadajirkiina iyo bulshadiinaa lala dagaalamay caruurtiinaa lala dagaalamay guryihiinaa lala dagaalamay nin ilaahay la dagaalamay miyaa fakan kara saas way macnaa caalamulislaami maxaa maanta loo guulaysan laha idinla tahay ya ilahay baan dagaal kula jirnaa seenu guulaysanayna bal kaca waxaad tagtaan yani xarameynka taga meel kaleba ha aadina xarameynka waxaa ku wareegsan bangiyadii ribadaa ku wareegsan saas reer galbeedka bangiyadoodii baa ku wareegsan meel kale warkeeda daaba ummad marka ribadiisaa ugu tacaamulaysaay haddana ilaahu noo gargaaroo noo hiiliyo yani cadowga naga celi ku haysa see looga celinay adigaaban dagaalku ugula jiraay seebaad macnaa waxa weye waxaysi hiilaan oo iga celi cadow adaaba cadowe ma dhici kartaa midda iyada ku talagala in ilaahay iyo rasuulkiisu idinla dagaalamayaan haddaad ribada dayn weydaan nin ilaahay la dagaalamayna marnaba guulaysan maayo shaki male haddaad tawbad keentaan ood ka noqotaanna ood ka tawbad keentaan xoolihii aad dadka daymiseen raasamaalkii ayaad leedahay wixii siyaado ahna ma lihidin idinku dadka inaad dulmidaan ma aha ood siyaadada qaadataan idinkana in laydin dulmiyo ma aha oo raasamaalkiini laydinka duudsiyo laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad 1,000 shilin ruux siisay heshiisna kula gashay inaad bil kadib 1,100 uu kuu keeno waa in aad kunkaagii raasamaalkaagii adigu qaadato siyaadadaasi waa dulmiga laguma ogola adigana raasamaalkaagii in lagaa meermeeriyo ama lagaa dhimo ma aha maxaa yeelay aday dulmi kugu tahay soo saas ma marka waxa wey waa cadaalada rabbaani aw raasamaalkii wax ka badan ma lihidin saa ku talagala way macna xadiis baa nabigana ka sugan sal alay waslam uu leeyahay yani ribadu waa 73 baab wey 73 kaa baab midka ugu sahlan waxa weeyaan waxay la dembi tahay ninka oo hooyadii u galmooda ribada noocyadeeda kala gedisan nooca ugu sahlan wuxuu la dembi yahay nin hooyadii u galmooday sawir cad ma xadiis rasuulkeena ka sugay sallallahu alayhi wasallam saas marka aad bay khatar u tahay ribada marka hal iska jiro nasiib darro waxa oo runtii aad murug waxa u leh maanta dhaqaalaha adduunku wuxuu ku salaysan yahay ribo ku salaysan khaasatan nidaamka ra'samaaliga ee hanti wadaaga ay dhahaan hanti goosadka ay dhahaan ee reer galbeedka ee dhaqaalaha adduunka hogaaminayahay gundhigiisa iyo saldhigiisa waa ribo saas macna meel looga baxsadaa laleeyahay marka wixii oo dhan ayagaa maamulaya iyagiina ribada iyo saldhig u ah qaab looga baxsadaa laleeyahay ninkeena ugu yar ee inoogu dambi yar waa ninka bangiga dhigta lacag dhigto xataa dulsaar ha qaadan waxba ha soo qaadan la mucaamalada aad la mucaamalootay bangi ribowi ah waa dembi allahuma in daruuro iyo xoolihii baa fakanaya meelaha inaan wax ka xuluulaysano wax ka raaraadsano mooye laakiin xaalku waa halis saas daraadeed ribaha layska jiro yaa ayuha aladiina kuwa aamanu fain lam tafcaluu haddaydaan falin oo aydaan ribada ka tegitaankeeda samaan aadaan falin fa'danu ogaada bixarbin dagaal ogaada oo min allahi xagga alla ka ahada warasuulihi rasuulkiisa xaggiisa wain tubtum haddaad ka soo noqotaan falakum waxaa udiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiina raasamaalkoodaad leedihin wixii idinka baxay laa tadlimuuna wixii siyaada amalihin wey macana laa tadlimuuna la idinma dulminayo laa tadlimuuna ma dulminaysaan dadka oo siyaadada qaadashadeedu waa dulmiya laydinma ogola walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo raasamaalkii idinka baxay laydinka dhimi maayo laydin warwareejin maayo waa in laydin siiyo siday ahayd laydin siiyo wey macana wain kaana duu cusratin wain kaana hadduu yahay duu cusratin wain kaana haddii la helo oo uu ahaado duu cusratin mid culays u saaxiiba fanadiratun falwaajibu waajibku waxa weeye nadiratun korosho iyo sugitaan la sugo ilaa maysaratin hodantinimo intuu ka gaadhayo la sugo
وأن تصدقوا إن صدقيستان با خير بدن لكم إذن خير بدن إن كنتم هداتين تعلمون كوه تيوعوي روحي أدين تقول هاي هشيسنا أكلق الشيئين والدلصار كسي دلصار نفسي شرعادي مركز كوت سيمت أول بريي هشيسك نوعها وحالو بيرسا سمالك أجيبه كقابو سيادة النتاج حداد الرأس مالك أجيبه وسنهلي كرين كور واحد وحوما كمان لحظة حتى يكون كاجيش كوميسو علمك محل الصبيل يا مركع وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر إلى الحب ملهد إلى المحكمة جيس ملهد إلى العيد ملهد إلى الأفلقة جيس ملهد إلى الدلت ملهد ما دام التبرتس انت عيد oo xoolo uusan haysanin waajibkaagu waa inaad ka sugto intuu hodanka noqonay oo uu kaaga heliyo macna saas weeyaan taa kaliyana ma aha ruux kasta oo dayn ka qaba hadduu caydtoobo ruuxu uusan dayntiisa heli karaynin waa inaad ka sugto laakiin xaqu mali haddii laakiin uu xoolo hayo ku meermeerinayo xoolahaagii uu sidaa doonayo inuu ku xalaashado marka kadib xabsi iyo yani awood iyo waxaad isticmaali karto waa isticmaal saas kaga qaadan karto maxaa yeelay waa nin markaa iska yeelyelayo لكن وإن كان هدو يهي ذو عسرة وإن كان هدو أهادو لهلو ذو عسرة مدعو ليس صاحبة أو وحنا أن هلي كرين هدي لهلو فالنظيرة فالواجب واجب كوحوي نظيرة كرشو لوسوغو إلى ميسرة هدن تنما انت لقارن انتو هدن كان نقول يوكاقه هليو وإلهي وحكسين وإلى دسوكتو ساسي معنا ولما وحكسي في عناد سقبع في دم وأن تصدقوا إلى صدقيستان oo isaga bacafidaan ya khayr badan lakum idin khayr badan in kuntum madaatin ta'lamun ku mar hadu cayd noqday isaga baahane waan ku cafiyay iska saasaba kaaga khayr badan ba dayntu ajir dheeraad ay leedahay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ayaa wuxuu ku yiri oo muslim ku soo arooray dadka maalinta qiyaamada arshiga ilaahay harsan doona waxa kamida ruuxu daynta kulaha ka suga saas macna ilaa uu ka helay ama kaba cafiyaba ruuxaasi wuxuu galayaa dadka cashiga ilaahay maalinta qiyaamada harsan doona marka dayntu waa thawaab iyo ajir baa laga raadiyaa bal xadiis kale waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam yani ruuxa dayn bixiya oo dadka wax dayniya dayntaasi intay ka maqan tahay maalin walba waxa loo xisaabinayaa sidii isagoo laban laabkeed la baxay oo sadaqaysto kale boqol shilin oo dayna ka maqan maalin walba waxaa lagu qorayaa ilaahay agti sidii adigoo 200 shilin sadaqaystay oo kale soo wax weyn ma ajirka iyo marka dulsaar baan isku helayna ajir iyo dulsaar baan isku helay maya sadaqadu sida leedayntu sida waa min baabul ihsaan irfaaqu dadka in la isugu dhimriyo la isugu naxariisto la isugu sabafana lagu talagalay laakiin in wax lagu kala faa'iido laguma kala gelin macna saas weeyaan طيب وإن كان هدو يهدو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا واتقوا كعبتدا يوما مال الإسكتشر ومال قيامته مالك ترجعون الذين علينا فيه مالك دحديث إلى الله حق الذين علينا ثم مركا كذبنا توفى الذين أوفين دونا ثم مركا كذبنا توفى ولا أوفين كل نفس النفوى البما كسبت وحي شقيستي با لو اوفين سيده ما يستر لوتين والحال با لو اوفين يهم يقول لا يظلمون ان الظلمين markii laga soo hadlay ahkaamtii faraha badnayd oo ribadii u dambeysay ayaa marka waxa lagu gabagabeynaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waaniin ila waaninay waxa leeyahay war waxaad iska jirtaan oo iska ilaalisaan maalin xagga ilaahay leedin celin doona maalinkaas ku talagala maalinka u diyaar garooba maalinka ku xisaabtama maalinka xagga ilaahay aad u noqon doontaan naf walbana waxay shaqaysatay si buuxda loo siin doona naf walba waxay shaqaysatay ayaa iyadoo waxba laga dhimin ayaa la siin doona hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay mar haddii la isla xisaabtami doono oo layna daba joogo oo waxaynu samaynay laynagaga daba imaan doono war ribada iyo xumaantana ka fogaada sadaqada iyo khayrkana ku dadaala sidaas macnaha la leeyahay taasa maalinta wax idin tari tanna way idin dhibaysaa wattaqu iska jira yawman maalin iska tiri maalinkaas oo turjacuuna leedin celinaya fihi maalinka dhexdiis ila Allah xagga la leedin celinay maalinka iska ilaaliy thumma marka kadibna tuwaffa wala oofin kullu nafsin naf walba ma kasabad waxay shaqaysatay baa loo oofin walhamhum yaga la yudlamuna an la dhiminin ya ayuha alladina kuwa aamanu rumayu
إذا قرتي تداينتم إزديمسان بدين دين مركز إزديمسان إلى أجل المدة انتي لغا قاري مصمم المدة صلى الله عليه وسلم فاكتبوه دين كقرأ وليكتبها قرأ بينكم لحدين كاتب مد قراء بالعدل عدالتها كقرأ مد كراني أو حقوني كرا سي عدالة كتشرتها إذن كقرأ ولا يأبي يسنديد كاتب مد قراء يسنديد أن يكتب إنه قراء وحي يعني لك لقاتي إنه قراء يمددسي يسنديد كما سيد علمه الله إلهي أبري طريقة أبرتي وديمها الله قرأ وإلهي أبريها أقرأ يسندين فليكتبها قرأ وليملل حيريو دين تمرك القرأ يا لقد جيسنا يا الله هذا متك السيء متك السيء متك السيء بقرأ يا يرينا وليملل حيريو الذي متك عليه دشيس الحق حقوي كحق الولا هي دين تهيريو وليتق الله الله كعصد ربه ربك كعصد ولا يبخس يسلم منه الدين كحقيس شيئا وحبي يسنكدم دي حقا الأولى يهي مركو الشاقي ويرين يولا قرية يسرح كدم فإن كان هدو يهي الذي متك عليه دوشيس الحق حقوية كحقا الأولى يهدو يهي سفيها من عقل فضوط من أوحقرين إنه مامل كحولا أنا قولين هدو يهي أو أمسي ضعيفا متمردرا ويهي وأريد داء أو علمية أو أمسي لا يستطيع من الأولي كان هدو يهي أن يمل إنه يريو وهذا قال مثلا أما ما هي وحويا وحمها اللي كروا أفلع يهي أما المقدم سنقرنين أو أمسي لا يستطيع هدوسا أن يمل إنه يريو وسنكري كرين هو يسوي إنه يريو فليمللها يريو وليه وليجيس يريو عميدك السفيه المعامل كحولها أقول وليجيس تروح وين إلمها وليجوذا midkan afka aan aqoonin ama dhagaha la waligiis ayiriyo macna falyumlil hayri waligiisu bil adliha ku yiri wastashhidu markhaati gashada wastashhidu markhaati gashada shahiidayn laba markhaati oo min rijaalikum rajina kamid laba markhaati oo rajina waxa laga wadaa muslim aaqil oo baalig ah rijaalkooda kaas macna laba rajina kamid markhaati galiya fa in lam yakuna hadaysan ahli labadi markhaati رجلين لبن هديس اللغن فرجل من وامرأتان لبحوين أيا يكفون كفلون أما فليشهدها مرخاتك عين رجل من وامرأتان لبطمع ممن كواس وممن عيد كمدا ترضون أغرال كتهين أو من الشهداء مرخاتيرا أغرال كتهين كواس أن تضل لو الضمر كم حال يسول لماني أن تضل إلى اللومي درتين إحداهما مدود إلى اللومي درتين أو فتذكر أي حسوسين إحداهما مدود الأخرى مدك أي حسوسين مدود باللومي يحلمامي تكرين الصدرات بالله طلق ولا يأبين الدين الشهداء مرخاتيين من الدين إذا ما دعوا هذه اللوير كاليا مرخاتي فرع أما كاليا مرخاتي حنبار هذين الذين الدين ولا تسأموا هالنوجين وهدالنا هكذا لنا أن تكتبوه إلى قرطان دينك يحقق صغيرا هذا أو كبيرا هذا إلى أجل المدد سنتي لك قاري دينك أما هير هذا أما هوين هذا إلى القرطان أكعجسنا ذلكم كينا سو دينك إلى القرآن يا أقسط عدالة بغن عند الله إلى يأتس سيدا عدالة كتشتا وأقوم طاسة تصلان بغن للشهادة لأداء الشهادة شهادة إيا مرخات فرق قد الشدي سنة ساسة تصلان بغن وأدنى إيا أبا شبرا وأدنى أيضا أبا شبرا الله ترتابوا إلا شكينا أيضا أبا شبرا ووقته إيا إنت يهيدينت إلا لغا شكين ساسة أبا شبرا إلا أن تكون إلي أهاتهم مويه التجارة تجارتي شيئا بسنة تجارة إيه كنعتها مويه تجارة سو حاضرة شوكتا كورتشوكا ماذا سو تديرونها أدولوشين بينك النهي حتى مكالقاضنا يسامبا ومبهنا مكا قرآن معنا فليس معها لمعدي حتى أنك لو رأي إنسان عليكم جسي من جناح وحدا بها الله تكتبوها إلي القريب وأشهدوا مرخاتي الجلية إذا قلت كما يعطوا هذا وحكا لقبال إنسان مركز وحكا إنسان مرخاتي سمية ولا يضار يالا من كاتب القرآن ولا شهيد إيا مرخاتي فرطا لولا مما يالا من
wain tafcaluu haddaad samaysaan oo dhibtaanna fainahu isagu dhibkaasi fusuuqun daacabax wey oo bikum idinka idinku sugan daacadii ilahay waad ka baxdeen way macana wattaqu llaha alla ka cabsada wayucallimukum allahu alla ayaa idin bari wayucallimukum wuu idin bari allahu alla wuu idin bari wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii ogsoon wey faafaahintan waa inoo dambaysa hada billahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi